السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعة محمد وادين سلام يا ميلو الباجوكتان وولاشين مع نوراتنا لما وتكوكن مع نوراتنا العدة وتقانو waxaan rajeynayaa maanta in la iga faa-iideysan doono. waxaan soo gelinayaa faa-iido yar, waxyaalo yaryar oon u faa-iideynayaa gabdhaha walaalahayga, gabar iyo wiilba, dhammaan qof walba oo doonayo maaragtay inuu caafimaad helo. muxuu ahaa yacni systemka wadamadan aan ku noolnahay, qofkii fahmaabaa fahmayo oo hadhowna maaragtay ka guuleysanayo wadankan iyo dhaqankiisa. waad aragteen dadkeeni waxay barteen canjeero qalalan iyo muxuu ahaaye baastii bariis. cunooyinkaas maka daalnamiya, dhibaatooyinka ay noo keeneen ilaahay baa og. tabaryari, nafaqa yari, muxuu ahaa yacni dhibaatooyin badan lagala kulmay. xataa waad aragteen ilmihii yaryaraa iyo dhalintii soo koreysa, wax ilmo xoog badanna ma dhalno. ilmaha bini-aadamka dhanba ilmahay dhalaan xoog ma wada lahan, marka ilmuhu koritaankiisa ayuu ku xoog weynaadaa. macnaha waxa aan siinayna hadday yihiin cuntooyin nafaqo iyo borotiin ku jiro, ilmaha wuxuu noqonayaa ilmo xoog badan. markaas buu qofkii markuu weynaadana qof xoog badan noqonayaa, ama ay noqonaysaa labadoodaba, wiil iyo gabarba. waad aragteen haddaan Soomaali nahay, dhalinteena waa wax wada munjo dhuudhuuban, muxuu ahaa garba dhuudhuuban. kii nin ahaa iyo kii gabar ah maba kala garanaysid, kulligood gacmahooda hoosba u wada dhacayaan. marka waxaa fiican ninka ragga ah inay gacmihiisa garbihiisa ay taagan yihiin oo gacmihiisana ayna gaarinba mansigta, ayna gaarin xoog daraadii ay saas u laaban yihiin baa fiican, ay kor usoo wada qaadan yihiin. laakiin nin haddaad aragto gacmihiisaba hooseeyaan oo muxuu ahaa tan iyo mansigta dhaafaya lagu leeyahay alla hebel gacmo dheer ayuu gacmo dheer yahay. ceebtaa loo hayaa loo qarin. Soomaaliya yaana isku ceeb qarinin, ceeb weeyaan waxaas. wallaahi dadkeena waa waxaasidiin caadi ah oo caadi ah. reer Soomaali meel walba joogaan, Soomaali dadka la yiraahdo xaasidnimada ka badatay, xataa way kuugu ceeb qarsanayaan. waan wiil markii xataa la buraanburayo gacmihiisa markuu sii jeedka dhabarkiisa iyo markuu socdana gacmihiisa muxuu ahaa walba siduu dhahayo buraanburkii waan ku arkay. laakiin waxaas waxba kama jiraan, yaanan been isku sheegin. nin gacmo dheer oo gacmihiisa ay minsagta soo dhaaftay faa-iido ma lahan, ka carar. gabar walbana waxaa u fiican wiilkeeda intuu yaryaa inay koriso oo cuntada borotiin kale aan siino. siiba waxyaa cuntadooyinka aan ka faano ayaa adduunka uga fiican, sida hadda digirta iyo galleyda oo kale. muxuu ahaa ii sheeg cuntadan la yiraahdo kalluunka, qubaha, muxuu ahaa cuntooyin badanaa jiro. xataa waxay dhaheen waxaa oo kale nafaqo leh. waad aragteen ajaaniibta dadka aada u cuna waa dadka hindida la yiraahdo iyo carabta iyo eeshiyaanka indhayarka. waxa ay xoog noqdeen ayagoo saa u lafa yaryar bay haddana kaa xoog badan yihiin. waxay intaa ku gaareen wax qashinkaas ay cunayaan wey. xataa waxay cunaan annaga maba cunnaba, kalluunka ayuu noocay cunaan, wax walba borotiin lahay cunaan, looma kala haro. annaga intii borotiinka laabaan tuurnaa, xataa markii neefka ariga la qalo intii kaloo dhan macal caloosh waan tuuraynaa. wax walba waxaan cunaynaa hilibkiiyo intaag muxuu ahaa la arkaya nadiifta ah. laakiin ogaada, waa soo ogaanay waxyaalaha nafaqada leh dadka ay cunaan iyo saa ku noqdeen waxa dhanba tijaabiyo. ogaada carabta oo kale waxay sameeyaan madaxa ariga, maskaxda ariga oo kale waxaasay cunaan, wadnaha iyo kale. laakiin Soomaali haddaan nama cunno mana sameyno. marka nimankooda waxyaalahaas u kariyaan, nafaqooyinkaas maraqaas u kariyaan, cabbay yiraahdaan way cabbaan. haddaan Soomaalina bariis, baasto, canjeero waxaan ahay ma cunno. marka wiilasheena inaan nafaqeyno weeyaan, ama wiilkaaga ha noqdo, walaalka, aabaha, abtiga, adeerka, ninkaaga wuxuu rabaa ha noqdo, whatever waxay rabaan ha noqdaan. ayagana waa inay bartaan inay jikadooda geli karaan, cuntadooda cuni karaan, ay soo ridan karaan, ay karsan karaan. namaana shaah ii karleeda, namaana kan ii qaban leeda, ma aniga meelisa taagan yahay. ayaga hadday maalin walba jikada geli lahaayeen waxa weeye borotiin bayba ka dhergi lahaayeen. hal qaadis u dhaminay wax walba. yaa maasha allah tabaaraka allah, ayaa la ila yaabin.
marka nin gacmo dhuudhuuban oo dhaadheero halka u joogana cidna ma rabtee muxuu ahaa gabarna maaragta ayadana luqunteedii garbeeda isdhexgaleen caatada ka badateen cidna ma rabto dadkeena inay isnafaqeeyaan baa fiican oo muxuu ahaaye la arki waayo luquntii garbaha dhexdooda la arki waayo saasa fiican oo nisnafaqeyno marka waxaa macnaha waxaa saa u leeyahay waxa weeye waxaan soo wadaa faa-iidada ku jirto waxyaalaha aan soo wado iyo dhibaatada ay leeyihiin waxa anaga aan sameyno Soomaali ahaan marka waxaa inoo fiican cuntooyinka xilliyada la cuno iyo xilliyada aan la cunin inaan sheegaan rabaa insha Allah iyo waxaa laga qaada muxuu ahaa garba xanuunka gor xanuunka kor xanuunka muxuu ahaaye laga qaada maaragtay caatada xataa waa aragnay wiilal badan oo Soomaali team sameeyay oo murqo soo bixi waaye no maxaad murqo ku yeelanay nafaqaba ma cuntaan waxna ma cuntaan waxaa la rabaa lixda wixii ka dambeeya inaan la cunin laakiin lixda ugu dambeyn afarta la cuno cunto ugu horeyna la cuno subaxii markay tahay 7 aroornimo ama 8 aroornimo insha Allah waqtiyadaas la cunaa kadibna waxaa sameynay siiba qurbahana ku noolnahay waxa weeye kaniiniga horta kaniin inuu ka marnaado ma fiicno kaniiniyada fitamiinka ah mid kale yiraahdo fitamiin D-ga iyo B-ga inaad isticmaasho B-ga waxa weeye cimri degdeg ayuu ka hortagaa xagga wajiga baby face baad yeelan adoon kareem ismarinin adoon is cadeynin baad baby face yeelanaysaa muxuu ahaa dhiigana waxa weeye qorax ma aragno jirki xanuunka wuxuu ka imanayna wax kale ma ahan waa qorax la-aan soo fitamiin D-ga iyo B-ga caado ka dhigo sidii ma aragtay muxuu ahaa kaniinka importanka ah qasabka la cuno kala sidii sonkorta dhiigkarka cholesterolka la cuno kala sidii u cun mar allaale markuu ka dhamaadana soo gado rag iyo dumarba labadaba la hadlayaa kaniiniyadaas aad soo gadanaysaan subaxii baad cuni adigoo dhirigsan weliba oo cunto yaroo nafaqo la cunay oo aad u fudud laakiin waxaad ogaataan cuntada macmacaan subaxii la cuno inayna daawo ahayn ay xun tahay oo xanuunna laga qaado markaad subaxii wax cunayso inaa in yaroo dhanaan ah iyo qaxwo isku cuntaa ama muxuu ahaa shaah bilaa sonkora wax lamida inaad cunto weeyaan duhurkii waxaad cunto cuntooyin caadi ah casarkii baad cuni kartaa wax macmacaan iyo qaxwo qareer oo sonkor lahayn intii baad isku cuni maasha Allah tabaarakallah marka saa yeesho waxa weeye waad ka guuleysanaysaa naftaada noloshaada inta ka dhiman Ilaahay mooyaan wax kale uma baahnid cid kalena uma baahnid marka walaalayaal talada yar baan soo jeedinayay oo aan rabaa inaan uga faa'iideeyo walaalahayga Soomaaliyeed waastaan aniga sameeyo gabdhahan waxaan dhihi lahaa aad doonayso cimri degdeg inuuna kuugu dhicin waa inaad naftaada aad daryeesho maalin walba subax walba habeen walba galab walba aad daryeesho saad ku daryeeli kartaa naftaada adigoon dhibaato badan ismarin culays iyo hawl badan gelin waxaad sameynaysaa subaxii markaad soo kacdo waa gabadhan ka hadlayaa subaxii markaad soo kacdo biyo qabow oo baraf leh oo kuleyl ahayn oo qandacna ahayn oo qabow hadda aad isleedahay subxaanallah biyuhu waa maxay waaba dhaxan waaba dhimo rabaaye ku qabayso waa ogahay maalinka u horeeyo waad qarqari maalinka xigana sidoo kale maalinka xigo maalin afaraad baa laga yaabaa inaad la qabsato tintaad kasoo bilaabi madaxa ilaa hoos waad qabaysan biyaha qabow maalinka dambeysa subaxii aroortii hore adoon waxba sameynin baad qabaysani kadibna muxuu ahaa hadaad caruur leeda caruurtaadi baad diyaarsan iskuulkooda meelahoodaad geeni markaa kadib baad soo noqon gurigaaga imaan haddaa baby haysatay baybigaaga waad la lugeyni haddii aan baraf lagu jirin weeye baraf haddii lagu jirana waxaa sameynay gurigaagaad ku sameynaysaa xoogaa in yar oo karsaysa oo jimicsi yar ah laakiin haddii ilmo yar guriga kugu harin soo wareeg kaba adagoo isboorti ah xiro sarwaal adag xiro waa haddii qaboobo lagu jiro muxuu ahaa dhar fiican oo dhaxanta kaa celinayo xiro soo wareeg hal baloog
kusoo wareeg xaafad ah, hal xaafad ama hal baloog kusoo wareeg. Markaad hal baloog soo marto guriga kusoo laabo, dee cuntadaada karso maadaama aad baahan tahay xoogaa jimicsi yar aad soo samaysay. Waxaad sameynaysaa cunto yaroo fudud baad karsani oo dhanaan, laakiin cunto macaan maahan, cunto dhanaan baad karsani oo fudud sida ukunta oo kale. Ukun oo maaragtay badhar lagu kariyey, filfil lagu daray, filfil la shiido lagu daray, iyo waxaad isku cuni kartaa rooti iyo koobka qaxwahaaga iyo shaahaaga waxaad doonto baad cabaysaa. laakiin mid ogow, cadays ha cabin, bigays cab. waayo qof karto sameeyey inuu haddana caano cabo waxa weeye xaydhii aad soo gubtay baa haddana kor usoo noolaanayso. Ha sameynin, because waxaa la rabaa xaydhaas inay gubato muxuu ahaa ayna soo noolaanin, ayna dib usoo kicin, way sii socon. markii shaah ama qaxwo wada bigaysa oo madow la cabo oo ukuntaas iyo rootigaas qalalan la cuno, ama cagaar salar aad ku cunto iyo afakaadho wax lamid waxaad doontay iyo caysh iyo basal, barbarooni, yaanyo. cuntada xataa cagaarka ah waxaad sameyn kartaa oo kale basasha iyo barbaroonigii baad jarjarani, afakaadhadii, cayshkii baad ku duuduubani iyo yaanyadii, ayagana waad goosani iyo salarkii sidoo kale ayagana waxaad ku darsani muxuu ahaa basbaas haddaad rabin, cusbo yar baad ku dari, waad goosani. koob shaah ama qaxwo oo bigaysaad ka daba cabi. maasha allah, waxyaalaha hadaad joogto ka dhigato waxa weeye calooshina way kaa degi, adigana qof yaroo wanaagsan oo qurux badan baad noqoni. kadibna kaniinigaagii baad ka daba cunaysaa, vitamin B iyo D labadoodaad cuni hal iyo hal subax walba. saasa sameyni. maasha allah, tabaaraka allah, ilaahay mooyaane cid kale uma baahnid. wadankana markaa waad ka raysay oo muxuu ahaa waad ka guulaysatay hawadii iyo weedarkii xumaa. dhaqtar dambena ma aadaysid, dib dambe dhaqtar uma aadaysid. hadaad macaan qabtay, hadaad dhiigkar qabtay, hadaad muxuu ahaa xanuuno kale cholesterol qabtay, wax walba waad qabtay. gabatiisankana sidoo kale ayadana waa u fiican tahay, tayroodkana sidoo kale waa u fiican tahay. waxyaalahaas gabdhaha qabo tayroodka, gabatiisanka, because waxaan waa xoogaa jimicsi yar iyo in yaroo cunto fudud weeyaan la cunayo. laakiin haddaan iraahno waxaan cunaynaa suugo iyo muxuu ahaa canjeero, ama beer iyo canjeero, ama canjeero iyo shaah baan cunaynaa, ama malawax baan cunaynaa. no, waxaasoo dhan waxa weeye caafimaadka uma fiicno. qadadana sidoo kale ha qaado oo maaragtay cunto ah, hal qaado jibsi camal, in yaroo ukuna, in yaroo muxuu ahaa kaluuna, in yaroo salarkii iyo wixii laisku jarjaray, kukaambarkii iyo laisku jarjaray basal, yaanyo iyo salar waad gees dhigani. maasha allah, isku cuni. duhurka sidoo kale saas sameyni. maalinka dambe sandwich baa ku bedelan, maalinka dambe hot dog, maalinka dambe maalinba waxa waa ku bedelan. laakiin bariis iyo baasto iyo canjeero iyo malawax iska kansal. canjeerada iyo malawax oo kale carruurta waa la siin karaa marmar, laakiin joogtii looga dhigana ayagana ma fiicno, oo aada in loo karsadana ma fiicno caafimaad ahaan. wadankeeni haa, laakiin wadamadan aan joogno waxa weeye hawadooda xun. gabadha Soomaaliyeed arrimahaas kula talin lahaa iyadii familkeeda. midda xigtana caafimaadkeeda maasha allah, midabkeeda iyo jirkeeda qurux wuu isku bedelayaa, gabar yar bay noqoni haddii intaas sameyso maalin walba everyday ay sameyso. muxuu ahaa shaaha badan ee bakeeriga badan la cabaya ee cadayska ah ha joojiso. shaaha waa inaad subaxi kaliya cabto iyo casarkii, intaa kaliya cab. laakiin casar iyo duhur inta udhexaysa, casar iyo subax inta udhexaysa ilaa habeen ha cabin. habeenkiina hadiiba la gaaraba 6da maqribkii waxba afkaa saarin biyo cad waxaan ka ahayn. inaad umul tahay ma sheegin, umul hadaad tahay caadi 5taada waqtigadaada iska wada cun, iska cun, iska cab, iska cun oo ha joojinin. umul hadaad tahay oo kale vitamin D iyo B-ga waad u baahan tahay, waad cuni kartaa. laakiin waadna soo lugeyn kartaa adoo biibigaagi wataad soo lugeyni, soo wareegaman baloog. cuntadaadana muxuu ahaa waad iska cuni. cuntooyinka laakiin dheeraad baad ku darsani. waxaad ku darsani oo kale yoogar macaan baad ku darsani ood cuni. in yaroo yoogar ah, in yaroo fruud ah, in yaroo apple ah, wixii aad rabto, apple, tufaax, wuxuu rabaha cid bisa u taqaano baad ku darsani. canab, waxaa rabti aad ka daba geysan haddaa umul tahay weeyaan aad nuujinaysa. laakiin tan kale
aan nuujineynin aan uurka lahayn arrimahaasaan kula talinayaa. marka walaalayaalow waa important waxan inaad samaysaan. cabaad iyo oohin dambena lagama maqlayo. naftaadana markaa waad ka guuleysatay. muxuu ahaa wadankana waad ku guuleysanay. jawigiisa waad fahmi. waxaan kaaga digayaa laakiin daawooyinka kiimikada leh ee la ismarinayo wejiga iska ilaali. haddaad rabto baby face inaad yeelato cuntooyinkaas cun, nafaqooyinkaa cun. muxuu ahaa exercise sameey oo soo jimicsa subaxii soo wareeg. biyaha qabow ku qabayso aroortii. maxaa ku soo haray oo kale fitamiinada aan idin tilmaamay cuna. vitamin D-ga iyo B-ga oo kale labadaas cuna joogto ka dhigta. haddii uu kaa dhammaado ha joojinin. soo iibsa mar kale haddana soo iibsa mar walba waana soo gadataan. insha allahu tacaala natiijo fiican baad gaari doontaan waana arki doontaan haddii alla idmo. marka kheyr badan idin rajeynayaa walaalahayga. qaybtaas halkaasaan kusoo gabagabeynayaa haddii alla idmo. videoga dambe wax kalan kusoo dari doona insha allahu tacaala. waxaan idin rajeynayaa caafimaad iyo kheyr iyo bashbash iyo barwaaqo insha allah. caafimaadna igu daawada. share iyo like iyo subscribe ha iga iloobina. ilaahayna ha idin dembi dhaafo. gacmihiina allah idin barakeeyo. marka waxaan idin rajeynayaa kheyr aada badan insha allahu tacaala. waana soo noqon doona haddii alla idmo. subax wanaagsan baa idin leeyahay. intii maalin u ah maalin wanaagsan, duhur wanaagsan, casar wanaagsan, habeen wanaagsan, maqrib wanaagsan, maasha allah cisho wanaagsan. asalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatu.